muuqaalkeena maanta saaxiibayaal waxaynu kaga hadli doonaa taariikhdii iyo burburkii ku imaaday dowladii Islaamka ee mar ahayd dowladii dunida ugu awoodda badnayd. khilaafadii muslimiinta ee u dambeysay ee Cusmaaniyiinta waxay jirtay 600 oo sanadood. labadii boqol ee sano ee u horeeyay waxay u ahayd waqtigii ay ku jirtay fiditaanka iyo horumarka. labadii qarni ee ku xigay waxay ahayd waqtigii aan waxna ka dhicin waxna u soo kordhaynin, laakiin ay si fiican u maamulisay dhulkii ay xukumaysay. 160kii sano ee dambe waxay gashay waqtigii hoos u dhaca kadib markii Yurub ay ka dhaceen isbedelo waaweyn sida kacaankii Faransiiska. aasaaskii khilaafadii Cusmaaniyiinta waxaa lahaa Cusmaan Qaasi. Suldaan Cusmaan iyo raggii kale ee ku sii xigay waxaanaanays u ahayd Qaasi oo macnihiisu yahay mujaahid ama halgamaa, taas oo tilmaamaysa inay u taagnaayeen jihaadka iyo horumarinta Islaamka. qarniyadii dambe waxaa hoos u dhac ku yimid qiyamkii Islaamka ee madaxdii Cusmaaniyiinta waxay khiyaameen ammaanadii xilka ee ay u hayeen ummadda. qarniyadii dambe gaar ahaan qarnigii 19aad waxaa dhashay dowlado Isir iyo Calmaaniyad ku dhisan oo dib ugu celiyay muslimiinta sawir u eg jaahiliyadii jirtay Islaamka ka hor ee ku salaysnay dhiigga iyo waddanka. Suldaan Cusmaan iyo kuwii ku soo xigay waxay hayeen jidkii diinta, Allahna ma lahayn islaamnimadoodu, sidaas ayay ku gaareen guulo iyo nasri eebbe oo aad u ballaaran, waxaana eebbe gacanta u geliyay awoodii dunida. sanadihii dambe gaar ahaan qarnigii 19aad waxaa ku dhacay qallo aad u weyn kaas oo sababay inay aakhirtaankii burburto ama ay dunto dowladii Cusmaaniyiintu. Soomaalidu waxay tiraahdaa hasha kudna waa dilay waxna waa u weheliyeen. dowladii khilaafadii Cusmaaniyiinta cadowna waa isugu tagay, waxyaalo kale oo gudaheeda ahina waa u dheeraayeen. halkan ayaynu qaarkood si kooban ugu tilmaami doonaa. sida uu sheegay Sheekh Dr. Maxamed Muuse Shariif, laga soo bilaabo waagii uu gaboobay Suldaan Suleymaan Al-Qaanuuni waxaa ku bilaabmay hoos u dhac ku yimid maamulkiisa. sidaynu soo sheegnay waxaa kor u qaaday toosnaantoodii diinta bilowgii khilaafadooda, waxayse waqtiyadii dambe in yar uga fogaadeen Islaamkii. waa sunnaha eebbe in ciddii ka leexata dariiqiisa ay hoos u dhacaan. haddii ay haystaan manhajka eebbe oo aanay sii daynina waxay helayaan nasri adduunyo iyo cirib aakhiro. laga soo bilaabo Suldaan Saalimkii labaad oo bedelay Abi Suleymaan Al-Qaanuuni. marka aynaan eegin waxyaalaha laga soo sheego dhaqankiisa, waxa soo galay maamulkiisa daldaloolo badan. daldalooladaasi waxa ay u bilaabeen si tartiib ah ilaa ay weynaadeen. aafadii ugu weyneyd waxay ahayd markii ay sameeyeen xeerar wadci ah oo la soo geliyey nidaamkii iyo maamulkii dowladda waqtigii Suldaan Maxamuudkii labaad. qarnigii 19aad Suldaan Maxamuud wuxuu dareemay hoos u dhac ku yimid xaalkii dowladda. wuxuu doonayay inuu adkeeyo nidaamka dowladda, laakiin wuxuu u maray waddo qaldan, wuxuuna keenay xeerar reer galbeed, wuxuuna ku soo daray dastuurka dowladda. waxaa kala fogaaday dowladdii iyo shareecadii ilaa waqtigii inankiisii Suldaan Cabdimajiidkii koowaad. si weyn ayay u muuqatay isku darkaasi ilaa ay noqotay wax caddaan ah oo iyaga laftoodu aanay qarin. sababihii riday khilaafadii Cusmaaniyiinta qarnigii tegay aad ayay u badnaayeen, waxaana ugu weynaa iyagoo ka leex manhajkii eebbe ee saxda ahaa. waqtiyadii dambe waxay garab mareen shareecadii iyo dhaqankii Islaamka. cid kasta oo garab marta shareecada burbur ayaa ah abaalka eebbe marsiiyo. qalbigooda waxaa galay adduunye jacayl. adduunye jacaylku wuxuu qofka ku ridaa cabsi iyo welwel isagoo u baqa naftiisa iyo xukunkiisa. arrimahaas waxay dhaleen dabacnaan ku timid hogaamintii ay ka soo gaareen raacii hore ee hogaamin jiray dowladii mar ugu xooga weynay dunida. dadyoogii muslimiinta ahaa iyana way dareemeen hoos u dhac ku yimid habmaamulkii dowladii Cusmaaniyiinta. waxaa ku soo dhiiraday cadowgoodii, waayo cadowga kama haybaysto maamulka haddii ay ka baydhaan eebbe jidkiisa oo ay door bidaan nolosha. Suldaan Maxamuudkii koobaad xilligiisu waxa uu dhaqangeliyey go'aan uu ugu yeedhay simidii muslimiinta, masiixiyiinta iyo yuhuudda. waxay ahayd arrin aad loola yaabay, waayo qofka muslimka ahi iyo dadka kale isku xuquuq ma aha. sida aanay isugu waajibaad ahayn ayay iskuna xuquuq ahayn. waa shay jira in qof waliba waajibaad iyo xuquuq gaar ah leeyahay, laakiin waxay ahayd khalad aad u weyn in la simo iyaga iyo muslimiinta. waxyaalaha laga sheego waxaa ka mid ahaa in uu yidhi maaha in la kala garto dadka dowladda ku wada hoos nool masaajidada, kiniisadda iyo macbadyada ay ku jiraan mooye. dadkii aan muslimiinta ahayn waxay soo dhaafeen xadkoodii iyagoo dalbaday xuquuqo badan. arrintaasi waxay keentay fasahaad badan ilaa ay noqotay asbaabihii ugu waaweynaa ee dumiyey dowladii Cusmaaniyiinta. waxaa hoos u dhac weyni ku yimid aqoontii ay ku guulaysatay markii ay bilaamaysay. hoos u dhacaas oo
ka yimid dhinacii cilmiga sayniska iyo fahamka diinta labadaba. Waxaa daciifay nidaamkii garsoorka iyo baabkii ijtihaadka. Waxaa la sheegay in ay gaadheen dadka wax akhriyi kara ama qori kara boqolkiiba 2 bulshadii ay u talin jireen dhexdeeda. waxyaalaha kale ee soo dedejiyey burburkeeda waxaa ka mid ahaa duulaankii isticmaalka reer galbeedka ku soo galeen dhulalkii muslimiinta dabayaaqadii qarnigii 19aad, iyaga oo isku fidiyey badi dhulkii ay ka talin jirtay dowladdu. reer galbeedku waxay gudagaleen inay qaybsadaan hambadii dowladii cusmaaniyiinta. inkasta oo ay isku haysteen sidii ay u qaybsan lahaayeen, haddana waxay ka midaysnaayeen inay ka takhalusaan islaamka. waxaa iyaduna sabab kale ahayd dagaalkii balkanka ee ka dhanka ahaa iyaga iyo ka qaybgalkeedii dagaalkii koowaad ee adduunka, kaas oo jilciyey ilaa ay soo galeen xoogagii reer Yurub ee Faransiiska iyo Ingiriiska xaruntii dowladii cusmaaniyiinta ee Istanbul. intii hore waa ay is adkeynayeen, laakiin aakhritaankii way galeen. wuxuuna galaaftay haykalkii dowladnimo, wuxuuna u googooyay qorub. Ingiriiska dagaalka waxay ka lahaayeen ujeedooyin siyaasadeed iyo mid ciidan. labadaba waxaa ugu muhiimsanaa in islaamka laga baabi'iyo, in uu noqdo awood caalami ah mar kale, iyo in ay qabsadaan Qudus, iyo in laga abuuro wadan ay Yuhuuddu leedahay Falastiin, kaas oo kala xidha bariga dhexe wakiilna ka noqda quwadaha reer galbeedka. asbaabihii kale ee daakhiliga ahaa ee gudaha ka weerara waxaa ka mid ahaa soo noqoshadii Yuhuudda iyaga oo ka soo qaxay ama laga soo eriyaday meelo badan oo Yurub ah. kadibna ay ogolaatay dowladda Cusmaaniyiintu in ay soo degaan dhulalkii ay xukumaysay dowladda Cusmaaniyiintu si ay uga nabad galaan cadaadiskii iyo dhibaatadii ka haystay dhulalkii masiixiyiinta ee Yurub. waxaa kale oo qayb ka ahaa dhigitaankeedii asbaabo dhaqaale iyo diimo aad u waaweyn oo lagu yeeshay. waxay dadka ka qaadi jireen cashuuro iyo jisyo aad u badan oo karaahiyo ku abuurtay dadkii ku hoos noolaa. ugu dambeyntii waxaa gabaabsi noqday khasnadii dowladda oo maratay, taas oo kaliftay inay bixin kari waayaan qarashaadkeeda sida ciidanka iyo shaqaalaha dowladda. waxaa kale oo hoos u dhacay tababarka iyo tayeynta ciidamada. askartana waxay dhex gashay arrimaha siyaasadda. helitaankii Cape of Good Hope waxay reer Yurub kaga maarmeen marinkii badda ee Cusmaaniyiintu xukumi jirtay, kaas oo Hindiya loo mari jiray. arrimahaasi waxay sii adkeeyeen xaalkii istaraatiijiyadeed iyo dhaqaale ee Cusmaaniyiinta. salaadiintii Cusmaaniyiintii dambe waxay ku oodnaayeen qasriyadooda iyo xarumahooda, ma raaci jirin ciidamada waqtiga dagaalka, sidoo kalena umay bixi jirin inay soo kormeeraan xaalkooda sidii ay u dhaqmi jireen raacii hore ee awoowayaashood. madhiibnimadaasi waxay kala furfurtay xiriirkii iyaga iyo shacabkooda u dhexeeyay, waxayna moraal xumo ku abuurtay ciidankii. arrimahaasi waxay fursad siiyeen dhaqdhaqaaqyadii gooni-goosadka ahaa oo qurub u googooyay dowladii Cusmaaniyiinta. waxaa kale oo aafo ahayd in shaqaalaha iyo barasaabyada ay magacaabi jireen intooda badan aanay lahayn kafaa'adii iyo aqoontii iyo ehliyadii maamulka u baahnaa.